shirkan oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa madaxda isbahaysiga rajo waxa ay ku soo bandhigeen talooyin badan oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka dhinaca abaaraha ee ka jira gudaha Soomaaliya. Cabdicasiis Takar oo kamid ah asaasayaasha rajo oo warbaahinta u akhriyay bayaan ay soo saareen ayaa mar uu ka hadlayay arrimaha ku saabsan ka qaybgalka shirka magaalada London ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. waxa uu ku taliyay in Somaliland laga qayb galiyo. Somaliland waxay ka tirsan tahay Soomaaliya, waxa weeye arrimaheedu wuxuu quseeyaa arrimaha Soomaaliya. haddii shirkaas ay ka qayb gali waayaan shacabku waxay u fasiran doonaan in arrimahaas looga dan leeyahay in Soomaalida qaarna la taageero qaarna aan la taageerin. waxa kale oo loo fasiran karaa in la rabo Somaliland in si gaar loo dhaqmo dawladda Ingiriiska oo ah dawladan saaxiibnahay oo Soomaaliya arrimaheeda danaynaysa. waxaan rabnaa inaan u sheegno in shirkaas ay ku habboon tahay in iyagu cazumay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada inay si la-eg ay cazumaan dad Soomaaliya oo xilkasa aqoon-yahana oo khubaro ah oo taariikhda waddanka yaqaan. dadkaasi waxay kaabi doonaan dawladooda ee kama hor imaan doonaan dawladooda. waxaan rabnaa inaan u sheegno oo kale dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada anagu malihiin yaysan ka faa'iideysan waddanka waxa yaal, laakiin taas waxay leedahay shuruuc loo maro. waxa loo baahan yahay haddii ay rabaan inay hanti waddanka taala ee waqti xilli ah ay ka faa'iideystaan iyadoo ummadda u danaynayaan. waxaa hor yaalla marka ugu horeysa in ay arrintaas ay ka faa'iideysanayaan ay soo hordhigaan baarlamaanka oo loo codeeyo. waxaa kaloo loo baahan yahay inay afti ka qaadaan shacabka oo iyadana loo codeeyo. waxaa kaloo loo baahan yahay inaysan xilliga ka faa'iideysiga aysan ka badnayn xilliga ay dawladdaas jirto. dhinaca kale aqoon-yahanadan waxa ay ku baaqeen in la gargaaro dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gudaha Soomaaliya. dadku waxa u moodaa inay caajiseen oo ay qaateen abaarihii inay dhamaadeen. abaarihii hadday sii xoogaysteen, roobkii la sugayay qaybo qaarkood oo waddanka ah weli kama da'in. xilligan waa xilli gaaban inta uu da'i doono. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa raxmadiisa ilaahay inuu waddanka uu keeno, laakiin dadku waxaa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan abaar dheer oo waqti badan qaadan doonta oo dad badan oo aysan hadda saameyn doonto. marka yaan la caajisin, dadka taasaan kula talinaynaa. Ahmed-nor Mohamed, Universal TV, Nairobi.